Soo dhawaada saaxiibayaal. Waxaa filan qorshihii in badan la wada sugayay ahaa sidee lacag u samayn karnaa in weli la sugayo. Tiimkeena boqolka qof way gaareen oo diyaar waanahay dheheen oo u baahan inay si howlkarnimo leh oo wadajir leh u wada shaqaysano. Qorshaha idin sheegay horta saaxiibayaal waa laba qorsho. Qorsho ka mid ah waxaa waaye in aan samaysano channel YouTube ah ama qof waliba xataa channel YouTube iyo TikTok inuu samaysto kadibna la is caawiyo yacni videoga la isku daawado la isu share gareeyo dad kale subscribe loogu soo saaro. Muhiimaduna subscribe maahan, subscribe-tu waa 500 oo qof bisa laga rabaa. Views-ku waa waxa aad ku dhib badan iyadaasna in la iska taageero. Qorshaha labaad oo hadda aan kuu sheegayno waxaa waaye in micnaha aan soo galno forex. Kulli anigu waan ku jiraa waan ka shaqaystaa alxamdulillah. Marka teamka raba in macnaha iyagana si wadajir inaan u wada shaqaysano doonaya in yacni inagu soo biiraan oo sidoo kale yacni qofkii doonaya waa inuu forex ka shaqaysto. Qofkii forex aan tabar u hayninna uu tago YouTube-ka qolada YouTube-ka uu ku biiro. Ani marka YouTube-kana waan ku jiraa forex-na waan isticmaalaa crypto stock. Marka intaaba marka yacni garab inaan idinka siiyo idin la wada jiro ayaan aad ugu dadaali karaa. Sida ujeedin hadda Soya ama SUI sida ujeedin hadda daraad marka saaxiibadan usoo dhigi lahayd 3 Abriil waxay mareeday $2.89 ayay mareysay. Okay, hadda haddii aan fiirinana waxay mareysaa $3. Waa macnaha iyadana waa crypto. Marka xoogeen anaga hadda crypto forex stock baan saareynaa especially forex-ka yacni maadaama oo ku wada cusub tihiin teamka hadda imaanayo oo saddexda aan isla xamili karin forex-ta ayaan xooga saareynaa. Haddii aan u imaano YouTube-kana iyadana waa easy. Fikrad baa la sameynayaa yacni qorshihii YouTube-ka yacni loo gadi lahaa oo lacag fiican loogu sameyn lahaa. Lama sameynayo YouTube Soomaali ah ama Soomaali keliya wax loogu soo bandhigayo. Waxaa la sameynayaa YouTube caalamka dhan laga daawanayo. Marka saaxiibayaal haddii aad diyaar tihiin qofkii diyaar ah forex rabo forex ha igu soo qoro qaybta commentiga. Qofkii dhahayana YouTube qaybta commentiga YouTube ha igu soo qoro. Soya sida ujeedin ma hadda waxay mareysaa waa $3.03 ayay mareysaa. Marka aad soo dhigayna $2.89 ayay mareysay. Sida ujeedin maalmahan marka bishan isku daba xigba cirka ayay u socotay. Waxaa la filaa markii $5 inay gaarto biidhnillah. Marka saas ayaan ugu faa'iideysanaa mar walbana channelkan free-ga ayaan sameynay oo saaxiibada aan u soo dhigno wixii crypto ah iyo wixii forex ah. Trade-kii ugu dambeeyay aan soo dhigay waa kan maalinkii Jimcaha ahayd weliba waxaan soo dhigay xilli galbihii ah. Waa ka soo ujeedidba xilli galbihi 11 saac waa mujida 20. Trade-ka markaa kadib markuu inoo furmay soo ujeedidba galitaankii aan galnay waa kaas. Stop loss-kii TB-gii sida ujeedidba habeenkii marka la maraayay 1 saac bar trade-ka meeshaas ayuu inoo maraayay aan soo dhigay. Halahaas uu gaaray ilaa qiyaastii waa 12 bib. 12 bib wuu dhaafay ilaa 20 bib ayuu gaaray kadib maana soo dhigin. Suuqiina yacni habeen bay sii ahayd oo wuu sii xirmayay Jimca ayay iska ahayd. Waxaan rajeynaa insha Allah Isniinta inay yacni rejection yarna uu soo sameeyay laakiin waxaan rajeynaa Isniinta inuu back u laabto kor u laabto laakiin anaga korbana ma haydo wuxuu inoogu jiraa hadda teamka break even ama management ayaan gelinay lacagteena ma khasaarayso hadduu nagu soo laabto qofkii ka qaatayna wuu ka qaatay. Marka saaxiibayaal soo dhawaada haddii qorshaha uu ku qanciyay forex haddaad rabtid forex igu soo qor. Haddii aad rabtid YouTube-na YouTube igu soo qor. Diyaar waa insha Allah labada dhinacba shaqo adag ayaan ka qabanaynaa. YouTube-kana fikrado waan ka hayaa forex-kana keliya barasho ayaa ka xigto. Bartaan si free ayaan signalska ugu soo gudbinaa oo saaxiibo badan ba way ka faa'iideystaan. Soo dhawaada marka insha Allah ina aad u soo daahan waa dareemi karaa marka mashquulaad baa iska jiray sidoo kale commentiga 100 qofood ahaan xoogo yar buu soo daahay
waa ogahay ilaa 300 oo qof ayuu hadda gaaray, laakiin marar badan in laysoo dhahay 100 qof wuu gaaray maxaa kugu dhacayna way jirtaa. Sababta aan u aamusnaa wax kale maahan, 100ka qof waxaa isugu jireen dad dhahayaan token pocket kaali aan kuu micnaha si aad lacag ugu samaysid token pocket kaali waxbay dhahayeen, noo fahanteen soo maan. Marka token pocket-kaasna wuu jiraa oo lacag baa laga sameeyaa, laakiin lacag hadda ani qancidi iyo qaab fiican oo lacag loogu samayn karo ma jirto. Sida uu ogaada insha Allah isagana waa kasoo hadli doonaa dhowaan بإذن الله. guul ayaan idin wada rajeynaya insha Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.